بسم الله الرحمن الرحيم ومahadsantiin gudoomiyaha aqalka sare gudoomiye cabdi caashe ila soo dardaarmay wuxuu yidhi dadka gaaja hayse soo gaabay hadalka wuxuu u bartay walaa inaa hadal dheerahay waa soo gaabinayaa marka waxaan u mahad celinayaa horta dadkii Soomaaliyeed ee xafladan soo agaasimay gudoomiye Cumar wuxuuna yiri isagu soo ma agaasimin soo sidaas baa gudoomiye marka waxaan u mahad celinaynaa shacabkii magaalada Muqdisho oo xafladan soo agaasimay una soo agaasimay inay filish u faataxeeyaan dhammaan madaxda halkan joogta kulligood si aan waqtiga u soo koobno gobolka Banaadir iyo xukuumadda odayaasha dhalinyarada haweenka culimada saxaafadda iyo cid walba marka ugu horeysay shacabkii Soomaaliyeed ee xafladan soo agaasimay oo codsaday inay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uga mahad celiyaan magacaabistii gudoomiyaha anigoo ka wakiilaha waxaan leeyahay mahad celintii waa idinka gudoonay kulligeen marka labaad waxaan leeyahay haddii halkan dardaaran laga bixi lahaa oo gudoomiye Cumar iyo aniga iyo gudoomiyaasha Cumar la shaqeeyay shaqaalaha gobolka Banaadir iyo wasiirada halkan fadhiyay cid walba oo dalka xil u haysa haddii halkan dardaaran laga bixi lahaa waxaa ka bixiyay ilaahay ha barakeeye Cabdi Cali Bacalwaan maalintii uu codkaas duubay iyo maanta taariikhdu isku sibay mudan tahay wuxuu noo sheegay inaanan dalkan annagu milkiyaalka ahayn oo mas'uuliyiin ka nahay wuxuu noo sheegay inaan shacabka u adeegno wuxuu noo sheegay inaan xoolahooda lagu tagrifalin wuxuu noo sheegay in marka ugu dambaysa qof walba lala xisaabtami doono waa mahadsan waxaan aaminsanahay gudoomiye in taladii uu noo soo jeediyey kulligan aniga iyo adiga iyo madaxweynaha iyo inta aan hogaaminaba inaan qaadan doono haddii ilaaha yidhaahdo intaas waxaan raaci lahaa waxaa halkan ka muuqda in gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho ay si xoog leh u taageersan tahay waxaa halkan ka muuqda in magacaabistiisuna ay sax ahayd laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo haddii aad rabtaan inaad xafladaysaan markii la xafladeeyana keligiis shaqada looga tago intaas kuma filne intaas wax ma ku daraysaan waxaan soo jeedi lahaa inaad gudoomiyaha garab istaagtaan si loo hubiyo dawladnimadii laga soo bilaabay 1960kii iyo ka horba soo bilaabatay in lagu sii wado magaalada astaanta u ah qarannimada Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay garab istaaga si magaaladan magaaladii dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka Soomaaliyeed aan kulligeen u wada ilaashano waxaan idin leeyahay garab istaaga si uu idin kala shaqeeyo amniga magaalada waxaan idin leeyahay garab istaaga sababtoo ah waxaan ku aaminay inuu ilaaliyo dawladnimada iftiinka magaaladan ka ah su'aashu waxay tahay marka ma la shaqaynaysaan mise waa la xafladaynaysaan
si fiican idinima maqlin ma la shaqaynaysaan ma garab istaagaysaan mise waa la xafladaynaysaan dalkiinu meesha uu maraayo waxaa u hartay keliya waxaa lagu aaminay guddoomiye cumar inuu ilaaliyo qarannimada ka dhisan magaaladan inuu isu keeno dadka inuu xuquuqdooda ilaaliyo waxaa lagu aaminay inuu ahaado mas-uul laakiin xukunka looguma dhiibin inuu milkiile ahaado waxaan idin dhihi lahaa marka garab istaaga say u xoogaysato dawladnimada qarka u saaran in dalkiina daynta laga cafiyo waxaan idin leeyahay garab istaaga say u xoogaysato dawladnimada qarka u saaran inay cadowgii oo dhan dalka ka xorayso waxaan idin leeyahay garab istaaga say u xoogaysato iftiinka inay muuqato in sharaftii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed la soo celiyey waxaan idin leeyahay garab istaaga si aan u sii badinno tusaalihii madaxweynuhu u natusiyey ku dhowaad 30 sano in dawladda soomaaliyeed ee magaalada washington ka iibsatay safaarad iyadoo ay leedahay ay ku shaqayso waxaan leeyahay garab istaaga sababtoo ah dadka magaaladan degan maalintay magaalo madax noqotay ilaa hadda ayagaa lagu yaqaanay inay isku haayaan shacabka soomaaliyeed iyagaa lagu yaqaanay inay qarannimada ilaashadaan iyadaa lagu yaqaanay inay dawladnimada dhiirigeliyaan waa inaad la ilaalisaan dhaqaalaha dalka oo magaaladan yaalla waa inaad la ilaalisaan sharafta dalka oo magaaladan taalla waa inaad la ilaalisaan mustaqbalka ummadda soomaaliyeed oo halkani oo ay aasaas u tahay waa inaad la ilaalisaan sababtoo ah soomaali oo dhan baa iska leh isagaana mas-uulka sidaas daraaddeed waxaan leeyahay haddii idinka oo isla socda kulligiin inta halkan joogta aad ku garab istaagtaan guddoomiyihiinna annaguna waxaan kala shaqaynaynaa codsi walba uu noo keensado shaqaynta guddoomiyaha macnaheedu waxa ay tahay in lagula shaqeeyo wanaagga in lagula shaqeeyo sidoo kale cid walba oo isku dayaysa inay wiiqdo dawladnimada inuu hor istaago